si gaar ah gabdhaha Soomaaliyeed make up ka lacag la'aan ayaan uga dhigayaa internetka free intay nool yihiin mid kasta gurigeeda mukayf ayaan u gelinayaa wiilasha maxaa u qaban war wiilasha horaan u sheegay wiilasha waxa weeyaan mid odayaal ugu horeyn muuqaalka like sar saaxiibada gaarsii caawaya ila joogo waxa ila joogo onka daahir suncabi oo ku magac dheer musharaxa nalka waa wiil Soomaaliyeed oo sheegay hadii uu noqdo madaxweyne in wiilasha Soomaali oo u sameeyay internet free ah dumarkana uu u sameeyay laba xaasna uu u guurinayo caawa arin mucjiso leh waaye muuqaalkan like sar share garay saaxiibada gaarsii soo dhaw waa dhowhay durdur media waan u mahad celinayaa walaalkay Catoosheer waa dhowhay 100% aad iyo aad ayaan ugu dhowhay durdur media waana sugayay wax badan in durdur media aan ka soo muuqdo arinkaygaana la iga baahay musharaxa nalka magacaas muxuu ku baxay rumaantii magacaasi waxa weeyaan wuxuu ku baxay waxa weeyaan runtii horta magacaasi mixnad gaar ah ayuu leeyahay rumaantii inaan ka sheekeeyana aan rabay runtii musharaxa nalka Catoosho wuxuu ku baxay aniga waxa weeyaan waxaan ahay nin dhalinyarada Soomaaliyeed oo ninka ugu horeeyay is soo sharxaa da'daas jira waxaan macnaha sheegay in hadii la doorto fursadda aan qabanayo ah in meel kasta aan iftiin iyo ilays dhigi doono mihi iyo magaalada xataa dhulka hoostiisa sidaas awgeed ay igu dhaheen musharaxa nalka marka waxa kale oo sameeynaya gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u sameeynayaa dhowr goor aan ka sheegay television haddana halkaan ka sheegaya televisionka ugu weyn maxaa la yiraahdaa Muqdisho ee durdur media waxa weeyaan aniga waxaan sameeynayaa dumarka Soomaaliyeed u sameeynaya mid kasta 480 bayaano oo dabaqa ayaan mid walba u sameeynaya caadi ma aha waxa weeyaan waxa soo socda badanayso waxa weeyaan runtii aan u sameeynayaa maxaa la yiraahdaa mid kasta mushaaran u qoraya culimada Soomaaliyeed xajka lacag la'aan ku tagayaan si gaar ah gabdhaha Soomaaliyeed make up ka lacag la'aan ayaan uga dhigayaa internetka free intay nool yihiin mid kasta gurigeeda mukayf ayaan u gelinayaa wiilasha maxaa u qaban war wiilasha horaan u sheegay wiilasha waxa weeyaan mid kasta laba naagood ayaan siinayaa waxaan siinayaa ugu yaraan 7500 ilaa 6000 lacag waxa la yiraahdaa hadaynan ka badnayn cidadkeedu waxa weeyaan intaas musharax waxa taa musharaxa kaliya ee magaalada Muqdisho ku dhaxlogay maxaa kugu dhali runaantii waxa weeyaan waxa igu dhaliyay aniga horta waxa weeyaan nin horta musharaxaan ahay horay ayaan u sheegay runaantii waxa igu dhaliyay in maxaa la yiraahdaa musharaxaan soo noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta la yiraahdo cududi dalkaatiin aqligii dalkaatiin xoogii dalkaatiin wax walba tiin mustaqbalkii dalkaatiin waxna aan la siinin siyaasad aan la siin Catoosheer weliga ma aragtay nin la yiraahdo aniga da'dayda oo siyaasad door fiican ka jooga xil helaya 40 jir 70 jir 80 jir is soo sharxaad aragtaa marka nin la yiraahdo marnaba door lama siiyo afkana waa loogu maawiliya inaan magaalada iskaga dhex lugeeyana wax weyn u cidnana wax ma yeelo cidna nin dhalinyarada metela ayaan ahay maxaa la yiraahdaa arinka waa sidaas jawigu waxa weeyaan maadaama aniga cidnaba waxba uma dhimiso ma nin gargaar iyo dhalinyaradii waxa weeyaan metelayo oo cid walba maxaa la yiraahdaa jacayl ayaan ahay sida awgeed marka wax baqdina ma jirto waa gartay waxa sheegtay in laba xaas aad guurinayso arinkaas aad ay u adagtahay gabdhaha Soomaali way masiir badan yihiin laba xaas iska dhaafay hadda hal qabtid maqanta lagu soo waca oo lagu kontarola see ku xalinay horta fiiri aniga horta hadda ka hor baan waxaan sheegay wareysi baan soo fariistay waan sheegay ma ogtahay gabdhaha Soomaaliyeed si gaar ugu roonaad waxay make up ka free baad ka noqon doontaan oo idinkaga dhigi doona internetka free maxaa la yiraahdaa xagga markaad ka soo baxdo beauty salon-ka inta markaad shaqada ka soo baxdo beauty salon-ka halkan ka gal oo lacag la'aan inta ka waxaad ka gashaa make up-ka waxa lacag laga rabin internetka free kii la dhigi jiray maxaa bajiyo ma wax walba halkaas ka gal lacag la'aan wax walba aan uga dhigay ma ogtahay maxaa la yiraahdaa waxa dhacday in ayna waxaba fiirinba ma fiirin waxaas ma ayna fiirin waxay dayeen kaliya labada naag ragga aan siinayo bis intaas kaliya mid kasta waxay display kaliya ya waxay waa fahmi waayade marka waa aan ka daayay waxaan dhigay ma adinkan yiraahdaa mayuga laba nin u guuriya marka waa laba xaasla ka dhigay gebigooda ba ragga waa taas kama kaftama iskaabula dhan ma jiri doonto durdur media wariyaasha durdur media inkastoo wariyaal hormarsan ay yihiin oo durdur media wada hormarsan yahay kulligood bururfay ku wada socod doonaan kulligood wallahi ma aha been
magaalada sheekadaada musharax burka camal ay tahay may musharax burka horta asna waa musharax laakiin si gaar ah aniga taydu waa dhab xaqiiqatan wax faana ma waa dhaaranaya wallahi taas been ma ay ugu dambeyn shacabkaada maxaa leedahay shacabkayga horta waxaan leeyahay horta marka hore waxa weeyaan soo dhawaada si sharaf la yaan idin salaamaya aniga waxaan ahay musharaxa dhalinyarada kaliya wax idin qaban kara si gaar ah maxaa la yiraahdaa maanta ninka kaliya oo aad 1 2 3 aad wax qabadkiisa intaad soo hor fariisan mar walba aad la xisaabtami kartaan ninka kaliya oo baahida Soomaaliya ka jirto dadka fahansi aniga musharax waxaan ahay madaxweyne u sharaxan xilka madaxtinimo oo Soomaali ah waxa weeyaan aniga hadda si gaar ah waxaan sheegayaa u maleynaa musharaxa oo ciyaalka xaafad ma warcad fashir saas dhigin baashaniyo wallahi billahi taa ma aha musharax madaxweyne dimuqraadiyad fiiri aniga waxaan dhashay habeen ma dhalan awaale dadka ma iyo aniga barqa cad ayaan dhashay waxaan dhashay ciidul adha waxaan dhashay maalin dimuqraadiyad ah oo ciid ay tahay oo waliba jamcad tahay waliba hoos hore ma fahantay dimuqraadi aniga dhamaa waxaan ka sameysanahay wadaniyad socotaba nalka ma isdiiwaan gelis aniga waa taas waxa weeyaan taladeedan ku jira waa taladeedan ku jira dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ma u dambaysa marka waxa weeyaan arintaasi aad iyo aad waxa weeyaan isdiiwaan gelinta iyo hawlaheeda aniga horta waxaan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed metala had iyo jeeraale cid kasta oo dulmanna waxa weeyaan dulmiga cid la dulmi doona ma jirto cid ka aarso doontana ma jirto dadka awoodan u wada yeelayaan cid qabiilkay qabiila ka jiro oo xildhibaanada lagu soo door qabiilkaas horta arinkaas dhowr TV ay weydiisay Catooshiyarow kowde aniga waxa weeyaan runtii ma dhici doonto qabiilkaas arimahaas waxas aniga dhalinyarada Soomaaliyeed si waxay ii dooranayaan qof iyo coda nin kasta oo Soomaaliya oo dhalinyarana maanta waxaan u gali doono waxa weeyaan wax aan caalamka oo dhamo haduu isu yimaado noo tareenan u gani doona aad u maasay musharax madaxweyne onka daahir suncawi oo ku magac dheer musharaxa nalka madaxweynaha Soomaaliya ayuu sheegay inuu u sharaxan yahay durdurmeedii ayaa nagala socotay waa saaxiibkiin Catooshere warbixintan waxaan ka codsanaynaa inaad like saabto saaxiibadana u share garayso kaamirada Maxamed Amiin gaduudo ayaa farsamada fadhiya caawa caadi ma ahan hala kala kiciyo barashada luqadda Englishka Universal Language Academic waa macad ku fududeynaya barashada luqadda Englishka hab online ah adiga oo gurigaada joogo waxa ka faa'iideysan kara dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee doonaya barashada luqadda Englishka hab Zoom ah ayaad ku baran kartaa sidoo kale macadka ayaa waxa ka howlgala macallimiin ajaanib ah waxayna la mid tahay adiga oo fasalka joogo kale hadii aad doonayso in aad ka mid noqoto ardaydan faraxsan waxaad iska diiwaan gali kartaa macadka Universal Language Academic oo ku fududeynaya fursadan waxaad la xiriiri kartaa WhatsApp number ama taleefanada shaashada kaaga muuqdo ka mid noqo ardayda iska diiwaan galis